ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxa weydiiyay in arrimaha dalka Soomaaliya ay dhakafaar weyn ku ahaayeen muddo dheer wadamada kale ee gobolka iyo beesha caalamkaba oo dhawaana la doortay afhayeenkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii iyo gudoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo beesha caalamkuna ay sugayaan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya sidee ayuu markaasi u arkaa sida haatan ay u socdaan arrimaha waddanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo su'aashaasi ka jawaabayay waxa uu yiri I think I'm grateful to the leadership in Somalia at this moment, the entire leadership, both at the federal as well as regional states, because they are the ones who are leading this process and they have steered it in a manner that can help the Somali people. waxay la tahay buu yiri oo aan ku amaanaya hoggaanka imika haya talada waddanka Soomaaliya waa hoggaanka oo dhan heer federaal iyo heer maamul goboleedba sida arrimuhu imika ay u socdaan sababtuna waxa weeye buu yiri waa iyaga kuwa hogaaminaya hanaankani waxaanay u wadaan buu yiri si taban taabin karaysa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan inay wax ka qabtaan buu yiri wakiilada matalaya dadka Soomaalidu waxaana si cadaalad ay u doorteen buu yiri wakiiladooda baarlamaanka iyo hoggaanka baarlamaanka labada aqal ee waaweyn ee baarlamaanka federaalka iyo ka kale ee aqalka sare oo marka dambena ay dooranayaan madaxweynaha lana magacaabi doono ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasaarada lagama filan kareynin buu yiri inay sameeyaan wax inta ka badan marka la eego xaaladaha Soomaaliya haatan ka jira waana inaynu fahansanahay buu yiri dhibaatooyinka Soomaaliya ay ka soo baxayso oo marka hadii aanad fahansanayn wixii la soo maray oo aad ka filato sida arrimuhu ay u socdaan hanaan caadi ah inuu noqdo marka sawir buuxa kama qaadan karaysid ee waa inaad xaaladaha u eegtaa buu yiri sida yihiin waxaan rumaysnahay in wadamada gobolka iyo beesha caalamkuba in marka waxa kaleba laga tago hoggaanka dalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyaba ay qaadeen tallaabooyin adag oo dhiirigelin leh oo hore loogu socday waxaan tacsi u dirayaa buu yiri dadkii ku riiqday weerarkii ururka al-shabaab ee argagixisada ah ee xiriirka la leh al-qaacida ay dhawaan ka geysteen magaalada Muqdisho waana in dalka Soomaaliya ay ka joogsadaan buu yiri xaaladaha sidaasi waxaanu u baahanahay buu yiri hoggaan adag oo joojiya arrimaha sidaasi ah iyagoo taageero ka helaya wadamada kale iyo beesha caalamkaba waxaan rumaysnahay in arrintani tahay buu yiri mid muujinaysa sida xaaladu ay uga qasan yihiin ururka al-shabaab sababtuna waxa weeye buu yiri waxay ka warhayaan in marka xukuumadda cusub la sameeyo ee dadkuna ay aqbalaan isla markaba inay wiiqmi doonaan waa ururka al-shabaab oo lagana tirtiri doono dalka Soomaaliya mabaadi'doodu buu yiri waa qaran diinta islaamka ku soconeen waa si qaar ka soo horjeeda waxyaabaha islaamku ay aaminsan yihiin ee markaasi ay qiimeeyaan waxaan shakhsiyan rumaysnahay buu yiri in Soomaaliya ay ku socoto dhabihii saxda ahaa laakiin ma filan karayo in arrimaha dhamay si turxaan la'aana ay u sii socdaan marka la eego sida xaaladaha Soomaaliya ay yihiin arrinta muhiimkii waxa weeye buu yiri in marka la eego dalka Itoobiya ay wiilashayadii iyo gabdhahayagii dhiigooda u daadinayaan sidii loo xasilin lahaa Soomaaliya iyo dadka Soomaalida iyo gobolkuba guud ahaan arrimahaasina annaga wayna khuseeyaan buu yiri maadaama aanu nahay waddan gobolka ku yaala oo xiriir dhowna la leh oo xagga dadka ah waddanka Soomaaliya waxaan rumaysnahay hanaanka imika socda inuu keeni doono dawlad meel mara laakiin annagu waxaanu diyaar u nahay buu yiri inaanu la shaqeyno cid kasta ee ay soo doortaan dadka Soomaalidu shakhsiyanna waanu naqaanaa buu yiri dhammaanba dadka u tartamaya inay hogaamiyaan waddanka Soomaaliya dhammaantoodna waanu la shaqeyn karnaa Soomaaliyana hore waanu la soo shaqeynay kuwii ka soo taliyay xaalado halkaas ay marayaan waxaana rajaynayaa buu yiri oo aan filayaa in natiijo wanaagsan ay uga soo bixi doonto saaxiibadayada waddanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha waxa uu weydiiyay oo kale in hadalkiisu u dhacayo iyo in kale inaanay lahayn murashax markaasi ay door bidayaan inuu doorashada ku soo baxo Well, those who are working with us now, we are very close friends, and if the status quo continues, then we like it. But that doesn't mean that that preference, excludes others.
kuwaanu imika la shaqeyno waxaanu nahay buu yiri saaxiibo aad isugu dhow haddii xaaladuhu ay ku sii socdaan sidaasna waanu jeclaan lahayn buu yidhi laakiin taasi kama dhigna in doorbididaasi ay tahay mid naga reebaysa ama naga xidhaysa dadka kale waayo mid kastoo iyaga ka mid ah waqti ayaanu la soo shaqeynay marka la eego murashaxiinta doorashada ku loolamaya xidhiidhkaanu la leenahay dhammaantoodba waxa uu ahaa mid wanaagsan laakiin waxaa jira hawlo aanu bilownay dowladda imika xilka haysa oo haddii markaasi ay sii socdaan siyaasadihii la hayay iyo hawlihii socday waxay noqonayaan qaar waxtar leh marka taas laga tagana waxaanu la shaqeynay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha imika xilka haya waxa kale oo aanu la shaqeyn karnaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kale su'aal kale oo aan weydiiyay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxay ahayd ama ha ku saxsanaadaan ama ha ku qaldanaadaan in dad Soomaali oo fara badan ay rumaysan yihiin in waddanka Itoobiya ay kaalin weyn ku lahaayeen arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya ilaa dhowr iyo 20 sanadood ee ugu dambeeyay marka waxaan weydiiyay sida xaaladaha Soomaaliya imika yihiin marka la eego inuu filayo in xaaladaha dalka Soomaaliya ay ka soo baxayaan qaskii iyo jahwareerkii iyo inay la tahay in wali jid dheer uu harsan yahay ra'iisul wasaaraha oo arintaasi ka jawaabayay ayaa waxa uu yiri I think what determines this question is whether we give room to the Somali people to decide or not. I believe and I have great confidence on the people of Somalia. I know that they are very much enterprising society. su'aashan jawaabteedu waxay noqonaysaa buu yidhi inaynu dadka Soomaalida siinay fursado ay go'aamo ku gaari karayaan iyo in kale shakhsiyan waxaan rumaysnahay buu yidhi anigoo kalsooni weyn ku qaba dadka waddanka Soomaaliya oo ogsoon in dadkaasi ay yihiin dad ganacsiga aad ugu fiican aqaanana xitaa buu yidhi dhaqanka ka jira qaybta Soomaalida ee waddanka Itoobiya in haddii dadka Soomaalida fursado la siiyo ay markaasi muujinayaan rabitaankooda oo ay samayn karayaan buu yidhi waxyaabo la yaab leh waxna taasi tamaanta ka socota buu yidhi qaybta Soomaalida ee waddanka Itoobiya oo markii fursado la siiyay dadka ay waddanka ka cirib tireen dadkii nabadiidka ahaa oo meel adag la geliyay marka dadku imika waxay fursado u haystaan buu yidhi in hawlahooda ay qabsadaan marka haddii al-shabaab la cirib tiro dadka Soomaaliduna waa dad wax qabsan karaya aan ku sheegay waxa saaxiibada u sheegayay buu yidhi maalin dhaweyd in marka laga hadlayo magaalada Muqdisho aan ku idhi miyaad ka war haysaan in Muqdisho ay ahayd magaalo nolol iyo xarako ay ka jirto waqti magaalada Addis Ababa ay ahaan jirtay buu yidhi xaafado cooshada waxaanay taasi muujinaysaa buu yidhi in dadka Soomaalidu ay ahaayeen oo welina ay yihiin dad hal abuur leh oo ganacsigana ku fiican laakiin waxa kaliya jira ay tahay buu yidhi inaan fursado la siinin iyadoo sababtuna ay tahay dagaalkan gudahooda iyo mabaadi'da qaldan iyo dadku aad loo xadiday buu yidhi wixii rabitaankooda ay ku muujin lahaayeen marka fikradayadu waxa ay tahay buu yidhi inaynu u hawlgallo sidii Soomaalida loo siin lahaa marinka muhiimka iyo fursadahaasi waxaana arki doontaa buu yidhi iyagoo si aad dhaqso isugu bedelay oo xitaa imika nabadgelyo darro ama nabadgelyo yari una ay ka jirto dalka Soomaaliya 6 ilaa 5 sanadood ee ugu dambeeyay anigu magaalada Muqdisho ayaan tagay buu yidhi dhawaan markii uu ka dhacayay shirkii ururka IGAD oo aan gudoominayay waxaana soo arkay buu yidhi markii diyaaraddu ay nagula degaysay iyo markii ay soo kacaysayba in isbedel ay wali socdaan su'aal kale oo aan weydiiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxay ahayd in Soomaaliya ay ku sugan yihiin ilaa 22,000 oo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM oo ciidamada Itoobiya ay si mug leh ugu jiraan hawlgallada Soomaaliya marka sidee ayay ugu muuqataa in aanay wali suurto gelinin in ay jabiyaan ururka al-shabaab oo wali si iskooda uga hawlgala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku jawaabay First of all, I said there is no grassroots administration. The people of Somalia has not got any, chance to fight these guys. They are forced and sometimes killed and tortured by these groups. So the whole thing is therefore we should have a Somali-led process. You need a credible administration that leads the process.
marka ugu horeysa waxaan oran lahaa buu yiri waxa meesha ka maqan oo aan jirin maamul dhulkoo dhan wada gaarsiisan oo Soomaalidu ay leeyihiin oo dadka Soomaaliyana aanay fursad u helin in nimankan ay kula dagaalamaan oo kooxahaasi ay sanduleeyeen oo ay laayaan oo ay jirdilna u geystaan dadka Soomaalida marka arrintu waxay isugu soo biyashubanaysaa buu yiri oo ay noqonaysaa in la helo hanaan ay Soomaalidu horkacayaan waxaana loo baahan yahay xukun shaqeynaya oo meel mara oo hanaankaasi hormuud ka noqda marka waxaan rumaysnahay in doorashooyinka imika ka dhacaya ay keeni karaan hab Soomaalidu ay ku midaysan yihiin waxaanad ka war haysaa buu yiri in maamul goboleedyada dhawaanahan uu la sameeyay oo awoodoodu heer bilow ay tahay in marka la xoojiyo awoodaha waxqabad ee maamul goboleedyada oo isla markaasna la xoojiyo awoodda waxqabad ee dawladda federaaliga kadib marka doorashooyinku ay dhacaan oo lana sameeyo ciidanka difaaca Soomaalida dadka dibadaha ka yimaada mar walba waxay ahaanayaan buu yiri dad iyagu dibadaha uun ka yimid isbedel uma keeni karayaan dalka Soomaaliya laakiin gacan iyo taageero ayuun bay siin karaan marka anagu hadii aan wadamada kale nahay taageero ayuun baanu siin karaynaa dalka iyo dadka Soomaalida laakiin isbedel kasta kama sameyn karno Soomaaliya marka waxay ila tahay in dadka Soomaalida iyo hogaankooda iyo ciidamadooduba ay noqdaan qaar wax qaban kara waxaana ila tahay buu yiri in maamulka cusub ee talada qaban doona waxaanu rumaysanahay inay ku dhaqaaqi doonaan dib u dhis oo ay wiiqi doonaan al-shabaab oo hawsha mudnaanta ay ka dhigtaan sida la garan karayo mar kasta oo dadku ay yeeshaan xukun adag oo iyaga ka dhasha waxtar ayuu u yeelanayaa meelaha qaarkoodna al-shabaab waaba laga ciribtiray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya waxa kale oo aan weydiiyay arrin kale oo u taala ururka IGAD iyo dawladaha gobolkuba inay tahay amuurta ku saabsan Somaliland iyo waxa laga yeelayo oo dhowr iyo 20 sanadood soo taagnayd walina taagan iyadoo Somaliland ay dawladi ka jirto laakiin aan la aqoonsanayn waxaana ka war hayaabaan ku yiri ra'iisul wasaaraha in dawladdaadu ay la macaamisho oo arrimo badan ay ka wada xaalaan xiriirka dhaqaalaha horumarinta dekada Berbera iyo marinkeeda iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin kuwa ammaanku sidaba marka isugu wadaysaan Soomaaliya iyo Somaliland ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo arrintaasi ka jawaabayna waxa uu yiri first of all the Somaliland and Somalia proper issue is that of their own and I was so much encouraged when the current president has launched a dialogue process between Somaliland administration and Somalia as a nation. waxaan marka hore oran lahaa buu yiri arrinta Soomaaliya iyo Somaliland inay tahay mid u taala Soomaalida oo u khaasa waxaana si weyn ii dhiirigeliyay buu yiri markii madaxweynaha imika haya talada Soomaaliya uu bilaabay wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland waxaana ila tahay buu yiri kuwaasi ay noqdaan qaar macna leh si markaasi loo xalliyo dhibaatadaasi sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka laakiin ilaa inta ay taasi dhacayso waa inaanu la macaamilaan Somaliland waayo waxaanu nahay deris aad isugu dhow wax kasta oo Somaliland ka dhacayaana wayna saameynayaan annaga Itoobiya ahaan ammaankayagu wuxuu aad ugu xidhan yahay buu yiri Somaliland marka indhaha kama qarsan karno oo kama xidhan karno oo ma oran karayno annagu shuqul kuma lihin waxyaabaha ka dhacaya Somaliland taas ma oran karayno marka in kastoo aanay ahayn buu yiri dawladda aqoonsan yahay oo wali aan u aragno inay ka mid yihiin Soomaaliya inteeda kale laakiin waa inaanu la macaamilaa dawladooda waa inaanu la xalaa dawladda iyadoo taasi ay ka war hayaan dawladda Soomaaliya lafteedu sababtuna waxa weeye buu yiri wax walba aanu halkan ka sameynaa waa qaaraan cidna ka qarsoonayn oo cadaana waa inaanu la yeelanaa xiriir dhinaca ammaanka iyo ganacsiga oo sohdimaha isaga gudba oo dadka iyagu ay wada ganacsadaan sababtuna waxa weeye buu lababa qaybin karayo labadayada dadyow marka Soomaaliya iyo Somaliland labadaba wada shaqeyn ayaa naga dhaxaysa oo waxa jira arrimo naga dhaxeeya waxa jirta dekada Berbera oo aad og tahay inaanu isticmaalaynay 10 sanadood iyo 100 sanadoodba mana ahaynaynu joojino inaanu isticmaalno dekada Berbera waa inaanu sii wadnaa inaanu isticmaalno waxaanad meesha ku darsataa haddii xitaa Somaliland ay kaba mid noqoto Soomaaliya
wax kasta oo kaabayaasha dhaqaale oo Somaliland loo sameeyaa waxay noqonayaan wax Soomaaliya uun meel u yaala marka waa in la taageeraa oo la xoojiyaa kaabayaasha dhaqaalaha marka xitaa haddii ay isla meel dhigaan arrimaha ka dhaxeeya waxyaabaha la sameeyay waxay noqonayaan qaar aan annaga iyo dadka Soomaalida oo dhamma isticmaali karayno sidaasi daraadeed macaamilada naga dhaxaysa Somaliland sidii aad sheegtay waxay ku salaysan tahay qaab ku meel gaar ah waxaan ra'iisul wasaaraha weydiiyay su'aal kale oo taasi daba joogtay waxaan ku idhi Somaliland waxa ay doonaysay welina ay doonaysaa in madax bannaani ay ka qaadato Soomaaliya inteeda kale marka ay timaado beesha caalamka mas'uuliyadda arrintaasi waxay ku soo riixaan wadamada gobolka oo imikana wadamadii gobolku sida dawladdaada oo kale amuurta ay ku sii riixayso dhinaca Soomaalida marka sidee ayay kugu muuqataa in dhibaatadaasi lagu xallin karo I think we trust, we believe that self-determination is for the people. That's why we push to the Somali people. And the Somali governments there should engage themselves and give the right to the people. And the people of Somalia and Somaliland are the ones who should decide their own fate. Even the international community cannot push it to the region. waxay la tahay buu yidhi inaanu rumaysannahay oo aanu aaminsannahay in arrinta ay ka talintu ay tahay mid u taalla dadka waana sababtaasi taan ugu riixayna dadka Soomaalidu waana in dawladaha Soomaalidu ay wada xaalaan oo ay dadka siiyaan xuquuqda ay u leeyihiin in dadka Soomaaliya iyo kuwa Somalilandba kuwa ay tahay in markaasi go'aan ay gaaraan oo go'aankaasi ay ka gaaraan mustaqbalkooda xitaa beesha caalamku arrinta kuma soo riixi karaan wadamada gobolka kale waayo ma aha buu yidhi arrin aanu awood u leenahay inaanu ka tala bixinno oo go'aan aanu ka gaadhno go'aanna uma gaari karno ummadda Soomaalida haddii aanu isku dayno inaanu sidaasi yeelno waxaanu samaynaynaa buu yidhi qalad aad u weyn sababtuna waxa weeye buu yidhi kama dambaynta annaga ayaa dusha u ridanaynaa mas'uuliyadda ay tahay inaanaan qaadin waana inay amuurtaasi noqoto buu yidhi mid go'aan ay ka gaadhaan dadka Soomaalidu haddii markaa dadka Soomaalidu ay doonayaan inay sii wada jiraan waa in loo ogolaadaa buu yidhi haddii dadka Soomaalidu ay ku heshiiyaan in wax kale ay yeelaanna taasna waa tu ka duwan buu yidhi oo go'aankeeda iyagu ay leeyihiin marka waxa la helayaa xal waara haddii aad weydiisay buu yidhi aragtidayda shakhsiga ah waxaan rumaysnahay inaanay Somaliland gooni uga bixin Soomaaliya inteeda kale laakiin dhammaantayo xitaa annagoo Ethiopia Soomaaliya Suudaan Eritrea iyo Djibouti aanu isku noqonno buu yidhi waddan kaliya oo midaysan laakiin taasi imika suurtagal ma aha buu yidhi oo laguma dhawaaqi karayo in waddan kaliya ay noqdaan laakiin waxay la tahay buu yidhi inaanu ku bilowno isdhexgal dhinaca dhaqaalaha oo la mideeyo oo siyaabo fara badan aanu isu dhexgalno dabadeedna marka dambe uu yimaado midow dhinaca siyaasadda ah waxaynu la tartamaynaa Hindiya oo tiradoodu imika ay tahay 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo qof oo xitaa iyagu Shiinihiiba imika dhaafay waxaynu la tartamaynaa midowga Yurub oo isku dhan inkastoo anigu Britain aanan ku raacsanayn go'aanka ay kaga baxeen midowga Yurub oo aanu arkay inay tahay talaabo qaldan waxaynu la tartamaynaa Brazil oo iyadu ah waddan awood weyn leh markastoo awooddaadu ay sii weynaatana way ku sahlanaanaysaa buu yidhi inaad tartan geli kartid oo aad ku tartami kartid suuqyada caalamka markasta oo la sii qaybsamana waxa la sii ahaanayaa qaar baahidu ay dishootay yaa ka macaashay buu yidhi markii ay ka gooyeen wadamadii ay ka mid ahaayeen bal hadda waxaad eegtaa Eritrea oo waxaad eegtaa South Sudan maxay tahay natiijada ka dhalatay macnuhu ma aha inaad goosato oo aad ku macaashaysid waase haddii uu jiro buu yidhi isfahan macno leh oo u dhaxeeya qolyaha isu tegaya markastoo awooddaadu ay sii weynaato waxaad noqonaysaa cid tartan geli karaysa waxaa jira tartanka caalamiga oo ay tahay inaynu indhaha u furro oo ay noo muuqdaan waxyaabaha dunida ka dhacaya oo haddii aad doonayso inaad isbeddel samayso oo dadkaaga noloshooda aad wax ka beddesho marka anigu waxaan noqonayaa nin u hadla nin awoodda la ballaariyo oo aan la sii qaybsamin laakiin anigu ma ihi cidda taasi go'aankeeda iska leh waana mid dadka u taalla
intaasna waxa ku dhan waraysigii dhawaan magaalada Jigjiga aan kula soo yeeshay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn